xafiiska waxaan ku sameeyaa magacayga waxaa la yidhaha Siciid. Maanta xafiiska waxay u yimid Mahdi oo ah maamulaha African BNet home page la gashado businessyada oo adduunko dhana. Aniga marka magacayga Siciid waxaan inta ku sameeyaa income tax. Waxaan sameynayay since 1996 marka accounting, bookkeeping, tax waxyaalo badan aan ku sameeyaa. marka taxka hadda waqtigii taxka la isxareysanaya lagu jiraa oo usually wuxuu socdaa bisha Febraayo, March, April 30keedana wuu dhamaadaa. laakiin sanadkoo dhan waa dad marba dada noo yimaado aan u sameynaa. marka income taxku kulley dadku waa kala bedelan yihiin. arday, dad shaqeeya, dad business yale, dad tagaasi, dad guryo leh oo matal guryahooda ijaara. marka aada loo kala bedelan yahay. marka qof walba adiga wixii markaas oo asagu wax ka soo galaan ama shaqaale ha ahaado ama business ha ahaado ama guri asagu ijaar ha ahaado ama tax ha wado ayaa kulley un loo sameeyaa. marka qof arrintaas taxka waa intaas. marka kulley taxku marka la sameynaa planning waa ku jiraa oo adiga marka taxka aad samaysanayso waa inaad matal yeerkaas oo dhan planning aad ku jirtaa oo matal RSP haddaad dhiganayso, haddaad wax dhiganayso adiga marka waa inaad aad ku tala gashaa. maahan adigu waraaqa intaad keentid dhahdo taxa la ii sameeyo. marka midda qaybta ugu muhiimsan income taxka waxa waaye waa qaybta planninga oo adigu aada ogaato, aad ku tala gasho intaad rabto inaad celiso always. marka Mahdi aada u mahadsan yahay booqashada xafiiska uu nagu soo booqday. marka hadda kulley meel cusbaan hadda u soo guuray. xafiiskii horan wax ku samey jiraa gubtay laasiyeen. marka home pagekan Africa BNet waa home page marka businessyada oo dhan la geliyo. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu home page weyn oo qof walba wixii uu rabo, qofkii bixin accounting rabo, qofkii tax rabo, qofkii rabo maqaayad cunto ka cuno, in qof walba uu arko. marka Ibraahimna Mahdina aada ugu mahadsan yahay shaqadan uu bulshada iyo dadka u haayo. waana mahadsan yahay. Thank you.